يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له جل عن الشبيه والمثيل والكفر والنظير، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه وخليله وخيرته من خلقه وأمينه على وحيه، أرسله ربه رحمة للعالمين وحجة على العباد أجمعين، فهدى الله به من الضلالة وبصر به من الجهالة وكثر به بعد القلة وأغنى به بعد العيلة، وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنا إلا هالك، فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله الطيبين وأصحابه الغر الميامين. ما اتصلت عين بنظر ووعت أذن بخبر، وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذني الله وإياكم من الفتن والضلالات. إخواني في الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله في السر والعلانية، فهي العدة، وهي مهبط الفضائل ومنزل المحامد، وهي مبعث القوة ومعراج السمو ورابط الوثيق على القلوب عند الفتن. واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. معاشر المسلمين، إن المؤمن يزيد إيمانه بفعل طاعات وترك المعاصي، كما يضعف إيمانه بالتقصير في فعل الطاعات والوقوع في المحرمات. فالناس يتفاوتون في إيمانهم، منهم مؤمن قوي ومنهم مؤمن ضعيف، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. إخواني في الله، بإذن الله تبارك وتعالى خطبتنا waxaan jeclaystay maanta inaynu markaa waxa weeyaan aynu kaga hadalno ضعف الإيمان, iyadoo si kooban aynu u sheegi doono dhowr qodob aynu ka sheegaynaa amaaraadka iimaanka daciifay, asbaabta keentay inuu iimaanku daciifo, iyo waxa dawada u ah. walaalayaal, rabbi subxaanahu wa tacaala addoomihiisa wax badan buu siiyey, laakiin ilaahay subxaanahu wa tacaala waxyaabuhu addoomihiisa siiyey waxa ugu qaalisani waa iimaanka. iimaanku waa shayga qofka sabab ugu noqonaya inuu markaa adduunyada nolol wanaagsan ku noolaado. man camila saalixan min dakarin aw unthaa wa huwa mu'min falanuxiyannahu xayaatan tayiba. iimaan iyo camal saalixa cidda laga helo adduunyada nolol wanaagsan baanu noolayn baa rabbi subxaanahu wa tacaala. iimaanku walaalayaal waa ka qofka aakhiro sabab ugu noqonaya inuu jannada galo, iyo inuu adduunyada ka badbaado markaa hallowga guuldarrada aakhirana markaa wax weeyaan uu ka badbaado. aladiina aamanuu walam yalbisuu iimaanahum bidulm ulaa'ika lahum alamnu wahum muhtaduun. kuwa rabbi subxaanahu wa tacaala rumeeyey, iimaankoodana shirki aan ku darin, hanuun adduunyo iyo badbaado aakhiray leeyihiin baa rabbi subxaanahu wa tacaala. ikhwaanii fi llaah, walaalayaal, iimaanka waxa saldhig iyo xarun u ah qalbiga, waa halka iimaanku dego waa qalbiga. kufriga iyo gaalnimadu halkay degtaana waa qalbiga.
nifaaqu halka uu degaa waa qalbiga alla ka cabsigu halka uu degaa waxa weeyaan waa qalbiga waana ka rasuulku calayhi salaatu wasalaam saddex jeer laabtiisa isagoo ishaaraya lahaa attaqwa haa huna wayushiiru ilaa sadri 3 maraat ikhwaani fillah astaamaha iyo amaaraadka haddaba lagu garto iimaanku inuu daciifay waxaa ka mid ah in qofka macsiyadu la fududaato in xumaantu qofka la fududaato dabeedna si sahlan ugu dhaco walow xumaantaasi xumaan yar ha noqotee waxaan odhan jireen dadkii hore wanaagsanaa laa tandur ilaa siqali lmacsiya walaakin indur ilaa cadamati man casayt ha eegin xumaanta yaraanteeda laakiin waxaad eegtaa cidda aad caasiyayso weynigeeda cabdillaahi markaa ibnu mascuud radia allahu canhu waxau leeyahay ina almu'min yaraa dunuubahu kaannahu fii asli jabal yakhaafu an yaqaca calayh waina alfaajira yaraa dunuubahu kadubaabin waqaca calaa anfihi fayaquulu haakada fataar qofka mu'minkaa dembigiisaa la culus waxaanuu ka dhigan yahay qof markaa buur gunteed jooga wuxuu ka cabsi qabaa buurtaasi inay kusoo duntay kusoo shalwato laakiin qofka la qabsaday dembigu wuxuu u arkayaa markaa waxa weeyaan duqsi sanka ka fuulay dabeedna saa uu iskaga duuliyey anas ibnu maalik radia allahu canhu waxau tilmaamayaa inakum latacmaluuna acmaala hiya adaqu fii acyunikum min ashacr in kunna lanacuduha calaa cahdi rasuuli illahi sala allahu alayh wasalam min almuubiqaat atarka bukhaari saxiixiisa ku jira war acmaal baa samaynaysaan buu leeyahay anas ibnu maalik annagu wakhtigagii muhlikaad baan u haysanay waxyaabaha lagu halaagsamo laakiin maanta idinka waa idinla fududahay waxaasoo dhan ka kaalay nebigeennu calayhi salaatu wasalaam xadiidka saxiixaynka ku jira waxau tilmaamay ummadda nebi maxamed oo dhan in loo dhaafayo mujaahiriinta kuwa la yidhaha mooyaane kullu ummatii mucaafan ila almujaahiriin wa ina min almujaaharati an yacmala rajulu billeyli camala uma yusbixu waqad satarahu allahu tabaaraka wa tacaala ummaddeedoo dhan dembiga waa laga dhaafayaa mujaahiriinta mooyaane buu rasuulku uhi calayhi salaatu wasalaam markaasaa mujaahirka wuxuu tilmaamay qof xumaan sameeyey dabeedna rabbi asturay bilaabay markaa inuu isagu ka sheekeeyo yaa fulaan camiltu lbaarixata kada wa kada hebelow saa iyo saasaan sameeyey ilaahay baa asturay xumaantuu sameeyey markaasuu isagii isfadeexadaynaya amaaraadka iimaanka daciifay waxaa ka mid a qofku markuu gaarig noqdo ee dadka indhahooda uu ka qarsoomo inuu ilaahay subxaanahu wa tacaala caasiyo inuu ku dhiirado wixii rabbi subxaanahu wa tacaala u diiday la aclamanna aqwaaman min ummatii ya'tuuna yowma alqiyaama acmaal jibaal tihaamata baydaa fayajcaluha allahu habaa'an manhuura amaa inahum ikhwaanukum wa min jildatikum waya'khuduuna min alleyli kama ta'khuduun walakinahum aqwaamun ida khaluu bimaxaarim illahi intahakuuha rawahu ibnu maajah walxadiidu saxiix min xadiidi thawbaan wuxuu leehay rasuulku calayhi salaatu wasalaam qiyaamaha waxaa yaan la iin keenuuna arkin qaar ummaddayda ka mid a oo acmaal waaweyn la imanaya markaasaa wuxuu rasuulku tilmaamay calayhi salaatu wasalaam in markaa waxa weeyaan camalkooda laga dhigi doono boodh la afuufay thawbaan wuxuu leeyahay saxaabigaasi oo raawiga xadiidka ah rasuulka ilaaha kuwa noo sifee kuwa noo tilmaan si aanaan kuwan uga mid noqon annagoo markaa aan garanaynin waa walaaladiin buu rasuulku uhi calayhi salaatu wasalaam xataa wuxuu nebigu tilmaamay habeenkiina inay cibaadaystaan maxaa laakiin ku dhacay walaakinahum aqwaam idaa khalow bimaxaarim illahi intahakuuha waa qaar markay la gaar noqdaan rabbi subxaanahu wa tacaala wuxuu u diiday aanu aaba yeelin laakiin ku haameeya ikhwaanii fillaah astaamaha iimaanka daciifay waxaa ka mid a qofku in markaa waxa weeyaan caalamkan dhibaatooyinka ka dhacaya iyo masiibooyinka wareegaya saaxiibada iyo jaarkiisa ku dhacaya inaanu cashar iyo cibro aanu ka qaadan inaanu ku waantoobin inaanay isaga saamaynin waa tilmaamahay ka mid tahay amaaraadka muujinaya qofka iimaankiisa inuu daciifay iimaanka daciifay waxaa ka mid ah ikhwaanii fillaah wacdiga iyo waanada iyo aayaadka qur'aanka kariimkaee laysku waarinayo inaanay qalbigiisa markaa waxa weeyaan ruxin inaanay jidhkiisa iyo maqaarkiisa aanu qamandhacyoon inaanay markaa waxa weeyaan indhihiisu aanay ilmayn iimaanka daciifay astaamaha lagu garto waxaa ka mid ah ikhwaanii fillaah xabaalaha marka la tago aakhire markaa waxa weeyaan marka laga warramo inuu qofku isagu markaa waxa didiila dheeraan naftiisa markaa ugu sheekeeyo duulul amal adigu muddo badan baad noolaanaysaa kuwan waxa weeyaan adigu waxba kaama dhowaa caafimaadkaagu wanaagsan yahay berigii dhoweedna adigii jeekabka soo maray macnaha waxa weeyaan duulul amal buu iskaga nool yahay ikhwaanii fillaah iimaanka daciifay waxyaabaha tilmaamaya waxaa ka mid ah in qofku markaa waxa weeyaan dhibaatada walaaladii ku dhacaysa inaanay markaa waxa weeye saamaynaynin inaanu ka murugoonaynin inaanu markaa waxa weeyaan ka damqanaynin dhibaatada walaalkii ku dhacaysa iyadoo rasuulku tilmaamay calayhi salaatu wasalaam mu'minku inuu mu'minka kale u yahay markaa waxa sida dhismahoo kale oo markaa saa isku adkaynayo oo markaa waxa weeye inuu la dhibaatoonayo ikhwaanii fillaah amaaraadku waa badan yihiin wakhtigan xaadirka ana aad iyo aad bay u badan yihiin dad badan baa cabasho kuu soo gudbinaya markaasaa waxaa laga yaabaa inuu kudhaho salaada saan ku galay baan kaga baxay
quraanki waan akhriyaya laakiin isbedel badan ma dareemayo dhikrigi baa la imanaya isbedel badan ma dareemayo maxaa dhacay iimaankii baa daciifay ikhwaani fillah iimaanku iskama daciifo asbaabta keentay iimaanku inuu daciifo waxa kamida inuu qofku ka fogaado jawiga iimaaniga ah meelaha la isku rajo gelinayo ee la isu waaninayo la isu cabsi gelinayo waxa weeye la isu rajo gelinayo ee waxa weeye lagaga warramayo rabbi subhanahu wa ta'ala kitaabkiisa iyo sunnada rasuulka alayhi salatu wasalaam inuu ka dheeraado ولا تكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون ربي عليه سبحانه وتعالى هل من نقولنا كوي وقتك كل يراضي الدبيدنا مركا وحيين قلبيه دو مركا وحي انجيجين وحيابها ايمانك ضعيف يا اسبابتها waxa kamida inuu qofku adduunyo ku mashquulo adduunyada lagu mashquulsan yahay laakiin adduunyadu inay noqoto shayga qura ee isagu markaa uu ka fakarayo shayga qura ee murug galiya inay adduunyo noqoto rasuulkuna alayhi salatu wasalaam ilaahay uu ka magan gali jiray allahumma la taj'al ad-dunya akbar hammina wala mablagha ilmina ilaahay waxaan ka magan galay hamigayga ugu badan inaad hamu marka hammi dunya ka dhigto wa ka rasuulku alayhi salatu wasalaam marka la tilmaamay xadiidka tirmidhi ghayrkiiba ku sugan hamigiisa koobaad qofku adduunyada noqdo arrimihiisa rabbi subhanahu wa ta'ala inuu kala tuuro ومن كانت الدنيا أكبر همي شتت الله شمله وجعل الفقر بين عينيه ولم يأتي من الدنيا إلا ما كتب له قفك هميgiisa ugu badan adduunyada noqdo arrimihiisa ilaahay kala tuura faqrigana indhaha dhexdooda loo soo dhiga adduunyadana kama helo rabbi subhanahu wa ta'ala wuxuu qoray mooyaane ikhwani fillah asbaabta keenta iimaanku inuu daciifo waxa kamida inuu qofku markaa wax weey saaxiib ku raaco saaxiibka xuni waa khatar almaru ala diini khalili falyanzur ahadukum man yukhalil midkiin wuxuu la diin yahay saaxiibkii qofku ha iska hubsado buu leeyahay rasuulku alayhi salatu wasalaam cid uu saaxiib ka dhiganayo xadiidka saxiixayn ku jira nabigu wuxuu tilmaamay alayhi salatu wasalaam mathalu jalis as-suu kanafiqul kiir qofka saaxiibka wuxuu ku tilmaamay qof la saaxiibay nin markaa waxa weeyaan dab ku shaqeynaya oo dab wax ku buufinaya imma an huriqa thiyabak wa imma an tajida minhu rihan muntinabu rasuulku alayhi salatu wasalaam in dimbil iyo dhara intay ka soo duusho mariyaha ay ka gubto ama markaa waxa weeyaan dambaska iyo qiiqa ka baxaya sanka iyo markaa waxa weeyaan afka buu ka galo ikhwani fillah asbaabta keenta iimaanku markaa waxa weeyaan inuu daciifo aad iyo aad bay u badan tahay waxaana kamid ah walaalayaal cilmiga shariicada qofku inuu markaa waxa weeyaan ka tago barashadiisa cilmiga shariicada inuu qofku ka tago barashadiisa imaka waxaynu arkaynaa oo akhiiran aad u badatay lama diidan qofku maadiga inuu barto laakiin waxaad arkaysaa nin boorso weyn dhabarka ku sita oo intaasoo buug ay ku jiraan oo aanu ku jirin kitaab u yar ee shariicada laga bartay aanu ku jirin oo kici kari la sidii askarta oo gurguuranaya war xagee tagaysaa adeer jaamacad baan dhigtaa labada gelimo jaamacad baan dhigtaa goorma diinta barataa xadiiska nabiga ma barataa tafsiirka ma barataa fiqiga ma barataa tawxiidka kutubu tawxiid wax ma ka dhigatay waxa laga yaamaanay waxa weeyaan jaamacadan doonayaan meel ku tiiriyo waqtigiisa gabigiisa waxa qaatay inuu markaa waxa weeyaan maadiga ku buuxiyo waa takeenaysa inuu markaa waxa weeyaan iimaanku markaa wax daciifo adduunyo lagu mashquulo oo lagaga mashquulo aakhiro horna waa u soo tilmaanay alhaakum at-takaathur hatta zurtum al-maqabir waxa idin mashquulisay baa Ilaahay subhanahu wa ta'ala badsasho badsanaysaan dad iyo duunyo badshiba idin mashquulisay ilaa xabaalaha markaa ka timaadaan bimaana ilaa qofku dhinto oo isagoo jinaasa inta la soo qaado lagu soo daro markaa wax weey liiska xabaalaha lagu soo daro أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ثم ما بعد إخواني في الله xanuun waliba dawo ayuu leeyahay dawada iimaanka oo daciifay waxa kamida kow ka ah ilaahay subhanahu wa ta'ala barashadiisa rabbi subhanahu wa ta'ala aqoon inaynu u yeelano markasto adoonku ilaahay aqoon u yeesho waa markasto iimaankiisu markaa wax weeyaan kobcayo waa markasto alla ka cabsigiisu markaa uu badanayo fa'lam annahu la ilaha illa allah wastaghfir li dhanbik walilmu'minina walmu'minat wallahu ya'lamu mutaqallabakum wa mathwaakum رب عليه سبحانه وتعالى الله حق لغو عابد الله سبحانه وتعالى كليدين يحيى الى اوغو markasto adoonku aqoon ilaahay u yeesho ilaahay sifaadkiisa iyo magaciisa war wanaagsan iyo tilmaamihiisa sarsareeya
ومركز توقف كمركا وحويا إيمان كيس مركا وحويا كبعيو وحيابها إيمانك كردية وحكمت إخواني في الله صفحات كان عالم كآيات كم مقنية إنه مركا وحويا ندوغنو فيرنو مركا إنه كنت تدبرنو أفلا يتدبر إلهي عليه سبحانه وتعالى مياني أركين قل انظروا ماذا في السماوات وما في الأرض وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون بل إيقبا الله سبحانه وتعالى آيات كوكا كم مقنية لكن قف كان إيمان لهين وحويا وحبكوا كرسل ما يقول الرسول الله سبحانه وتعالى أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت مياني أركين قيل هبكانو أبو ربا الله سبحانه وتعالى سمد يهبكانو كوريا لي بورها يهبكانو قطمني دولك يهبكانو قوغل لي مياني أركين وشيء مركا وحويا إيمان لقى كرسنايو وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد وعيابها إيمانك كبعية إخواني في الله وحكم ذا حسوست آخره حسوست يدو إن قلبي ذي أنا كبضته إن بدن آخره كفكره إن هم بيجي أنه كبض إن نقول هم الآخرة إنه محاولة كحساب تنو آخره إن نكون ولا يدير ديران عبد الله بن عمر رضي الله عنهما سحابي قاسبوا النبي عليه الصلاة والسلام قرب كيس سوق بتمال ما حكم ذا مركزها وحكلها كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر السبيل الدنيا ده واحد كو أهاتا مد مركا مسافرة أو غريبة ودقان كيسي يدقل كيسي بقى شوقن مد مركا طريق قد بيه انت كده ميسي سحابي قاسي طردارا كاو قاتي مركاسا وحورن إذا أصبحت فلا تنتظر المساء وإذا أمسيت فلا تنتظر الصباح وخذ من صحتك لمرضك ومن حياتك لموتك رواه البخاري وارهدي واقو كوبريا قبل كدعيتان كيسا هسوق محايا لي إمسا واقو بريي وحويان وقبل كل عيسى ومركا وحويان ميدة ونفتك مقنطه قبل كهدو كل عنا واقبل يسها سجل عافمات كاجا كفا إيريسو عذر هرتي عافمات كاجا كفا إيريسو نلش هذا مركا وحويان جيري هرتيدنا نلش كفا إيريسو بوري عبد الصحابي قاسي رضي الله عنهما يسقي أبي الله كرالي النقد إخواني في الله وحيابها إيمانك كبعية وحكمدا أعماشا إن مركا وحويان أنا وقفكم مالون كقابسنين أعماشا كلا الدول يلا سمينا يسون بها النقطة إنه قفكم مركا وحوي كده دالو حديث صحيح مسلم كتير من حديث أبا هريرة رسولك الصحابة السؤال بمال مالها كم دويتيه مركا سوح على رسولك عليه الصلاة والسلام ما نصبح منكم اليوم صائما ورمان يا إذا كيد كم ده صوما وصنك سنها أبو بكر الصديق رضي الله عنه أنيقا صوما يا إذا كم ده ما أنت المسكين قودي وسؤال شيء لبعض فقال أبو بكر أرى رسولك له أنيقا بوري مرصد حاد رسولك عليه الصلاة والسلام يا قفر انتي أو مسلمين تكمل جناسدي سراعي مركز أبو بكر الصديق رضي الله عنه وحولي أنيقا مركز النبي عليه الصلاة والسلام مدحن وصنع يا بوغضي جناسي يا راعي أبو بكر أنيقا بوري قف حنوصنع يا بوغضي أبو بكر الصديق وحولي أنيقا مسكين يا وحدي بي أنيقا بوري أبو بكر الصديق رضي الله عنه يا وابرسي سقو صوما أنيقا بوري أبو بكر الصديق رضي الله عنه ما اجتمعنا في امرئ إلا دخل الجنة رواه مسلم رسولك عليه الصلاة والسلام أفرتنا الرموت قفك مالينكم كل مان هديكم كل مان جندوا قلبي بمعنى جندوا قليه صحابة رضوان الله عليهم وحيابها إيمانك ودبوره وكلكدقا وحوها رمينت إلهي أي رميين قويقا كالسونيد إلهي كقبان تبارك وتعالى لا إيمان شها واجباتك إلهي فري إيا مركا وحي كتكديرانتا ربي يرسل وحي أديدين تاسا إيمانك وحو كدقاي أو النقضي وحيابا مركا وحيا بورها إنو مركا وحيا لا ليقاضو إخواني في الله إيمانك وحيابا عسبونيسية وحا كمدا صاحب وناقصنا درهاعدو oo markaad xumaan samayso ka waaniyo ku raado waxa iska daa wanaag markaad ka gaabisana waxa weeyaan ku fara maxaa yeelay xadiidka hore inuu tilmaanay qaybtiisa kale mathalu jalisi salih ka hamil misk wuxuu ku tilmaamay rasuulku kaleey salaatu wasalaam la fariistaha wanaagsan ee saaxiibka wanaagsan qof marka cadar la ah iyo meel uduga lagu iibiyo imma an yuhdiyak wa imma an tabta'a min wa imma an tajida minhu rihan tayyiba rasuulku kaleey salaatu wasalaam inaad ka iibsato cadarka wanaagsan iyo inuu markaa ku siiyo iyo waqtiga kooban ee halka aad joogto inuu markaa wax weyn udgoon ka soo galo saaxiibka wanaagsan wuxuu kamid yahay waxyaabaha qofka sabab ugu noqdo markaa waxa weeyaan inuu markaa waxa weeyaan iimaankiisu markaa wax weeyaan kobco waxyaabaha iimaanka kobciyo waxa kamid ah akhrinta aayaadka Allah tabaaraka wa taala ma'a tadabbur iyadoo aynu ku tadabburayno wa ya rabbi subhanahu wa taala quraanka kariimka waxa uu ku yiri
afalaa yatadabbaruuna alqur'aan am calaa quluubin aqfaaluhaa qur-aanka miyaanay dhiganayno fiirfiirinayn oo aanay dhandhaminayn oo aanay dhuuxaynin mise qalbiyadoodaba qof walbaa ku jabsan inama almu'minuuna aladiina ida dukira allahu wajilat quluubuhum waidaa tuliyat calayhim aayaatuhu zaadathum iimaana mu'miniinta kuwa kamaaluliimaan gaadhay kuwa iimaankooda ka run sheegaya waa kuwa marka ilaahay la xuso tabaaraka wa tacaala ee lagu waaniyo qalbiyadooda ay cabsidu gasho qur'aanka kariimka hayna iimaan buu siyaadinaya bal hadda u fiirso ina fii dalika ladikraa liman kana lahu qalbun aw alqa samc wa huwa shahiid qur-aankani waanu u yahay baa rabbi yihi subxaana wa tacaala iyo waana u yahay qofka qalbi leh gaal iyo islaamba quluubba ay leeyihiin addoommuhu laakiin qalbi nool oo waxa weeyaan xaya isla markaa soo jeeda oo maqalkana raariciyo si xeel dheer u dhegaystay isagoo goobjoogo markaa waxa weeyaan jooga maqan aan ahayn wanunazilu min alqur'aani maa huwa shifaa'an waraxmatun lilmu'miniin rabbi subxaana wa tacaala qur'aanka wuxuu ku sifeeyey dawo inuu u yahay markaa waxa weeyaan qalbiyada mu'miniinta inuu dawo u yahay hanuun iyo naxariis qalbiyadan inuu dawo u yahay hanuun iyo naxariis dadka mu'miniinta markaa waxa weeyaan uu u yahay saa daraaddeed waxyaabaha iimaanka kobciya kuwooda u waaweyn buu ka mid yahay inayna arrinta ujeeddadu inaga noqon misxafka halkaa intaynu ka soo bilowno xagga kale inaynu ka gallo laakiin hal aayad ama 10 aayadoodoo qofku akhriyo oo qalbigiisa iyo noloshiisa wax ka beddasha in markaa waxa weeyaan qur-aanka aynu ku tadabburo siduu ahaa nabigu calayhi salaatu wasalaam waxaa sugan nabiga calayhi salaatu wasalaam inuu dhegaystay ruux dumara goor habeennimo ah dabadeedna iyadoo akhriyaysa suurad markaa qur-aanka ka mid a hal ataaka xadiidu lghaashiya dabadeedna ay ku celcelinaysa ruuxaa dumari rasuulkuna calayhi salaatu wasalaam kadinka intuu istaagay uu leeyahay nacam ataani ma kuu timid tii wax daboolaysay warkeedu markaasaa wuxuu nacam ataani bukhaari iyo markaa kayrkii waxaa ku sugan inuu dhegaystay rasuulku calayhi salaatu wasalaam uu ka dhegaystay cabdillaahi bn mascuud oo weliba uu ku yihi iqra' calaya alqur'aan qur-aanka igu akhri markaasuu saxaabigaasi yaabay aqra'u calayka wacalayka unzil miyaan kugu qur-aanka ku akhriy adaa lagugu soo dejiye wuxuu leeyahay rasuulku calayhi salaatu wasalaam iqra' calaya inii uxibu an asmacahu min hayri bal maanta aynu cidda aynu ka tusaale qaadanayno ee aynu ku dayanayna waa nebiga calayhi salaatu wasalaam xaalka qur'aanka siduu rasuulku ahaa calayhi salaatu wasalaam u fiirso in badan baynu qur-aan maqallaa ama waa la kala dhegaystaa oo dad xifdisan baa kala dhegaystaa ama salaaddaa lagu tukadaa ama qofku kelidii buu akhrisanayaa bal xaalka qur-aanka markuu rasuulku maqlay calayhi salatu wasalaam siduu noqon jiray iyo maanta xaalkeenna inaynu markaa wax weyn u fiirsanaa aad bay muhiim u tahay maxaa yeele cidda aynu ku dayanayno ee rabbi inagu addoonsada inaynu raad guraa waa nebiga calayhi salaatu wasalaam laqad kaana lakum fii rasuuli illahi uswatun xasana liman kana yarju llaha walyawma alaakhir rasuulka ilaahay ku deesho wanaagsan baa idinku sugan laakiin yaa ku dayanaya qof ilaahay iyo aakhira rumaysan ayaa markaa wax weeyaan ku dayanaya markuu saxaabigaas yidhi qur-aanka maan kugu akhriya adigaa lagugu soo dejiye inaan cid kale ka dhegaystaan jecelahay igu akhri faqara'tu suurata annisaa xata ida balagt fakayfa ida ji'na min kulli ummatin bishahiid waji'na bika calaa haa'ulaa'i shahiida suuraddan aan ku akhriyay wale suuratu nisaa waa suuradda afraad faatixada iyo albaqriya alcimraan baa ka horeeya suuradda afraad weeyaan suuraddaas aayaadkeedu waa dhaadheeryihin si cajiibaanay u warramaysaa qur-aankana mar walba halka carabka lagu hayo ayaad is odhanaysaa malaha tantii tu lamidiiba ma jirto markuu soo gaadhay ee oo aayadda aan soo gaadhay buu leeyahay sidee buu xaalku noqonayaa maalinta qiyaame marka aanu keenno ummad walba fakayfa idaa ji'naa min kulli ummatin bishahiid ummad walba marka aanu keenno iyadoo uu weheliyo la socdo rasuulkii loo diro markhaati ku ah ilan maalintaa waa laisku markhaati kacaya falanas'alanna aladiina ursila ilayhim walanas'alanna almursaliin rusushiina waa la weydiinayaa dadkii loo dirayna waa la weydiinayaa waajibkoodii waa guteen rusushu ummad walba markaanu keenno iyadoo uu weheliyo rasuulkii loo diray adigana aanu ku keenno adigoo ummaddaada la socda xaalku sidee buu noqonayaa saxaabigaasi wuxuu leeyahy halkaa markaan marayo nebigu wuxuu uhi calayhi salaatu wasalaam xasbuka alaan intaa ku daa intaasaa kugu filan halkaa ku jooji faltafad faidaa caynaahu tadrifaan wuxuu leeyahay saxaabigaasi rasuulka calayhi salaatu wasalaam saasaan u eegay markaa halkaa ku jooji markuu yidhi waa nabigii calayhi salaatu wasalaam oo waxa weeyaan indhihiisu markaa ay dareerayaanoo ilmadu markaa ay ka hibitiqlaynayso ikhwaanii fillaah bal maanta xaalkeenna ka warrama qur-aanka markaynu akhriyayno waxaa laga yaabaa qofku markuu heesaha dhegaysto inuu markaa waxa weeyaan miir doorsoomo oo u dhahdo yaa salaam waa hebel ha waa qaraamidii waa ninkii codka macaana codkii toolmoonaa qur-aankii marka qofku dhegaysto intaanu markaa waxa weya indhihiisu aana ilmayn qalbigiisu markaa wax weyaan ilmaynayay ee maqaarkiisu markaa wax weyaan qamandhacyoonayay waxyaabaha iimaanka kobciya waxaa ka mid ah ikhwaanii fillaah rabbi bariga rabbi inaynu weydiisanno inuu qalbiyadeenna dabciyo u jilciyo
ما هي قلوبته أدومها إلهي بقى عنك وهي تبارك وتعالى. أنس ابن مالك رضي الله عنه كما في سنن الترمذي وعلي السحابي قاسي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. الله قلبي يدرك رجو قلبي جاي دين تكسك بورنجر النبي عليه الصلاة والسلام. مرقاسته وحلي السحابي قاسي يا رسول الله آمنا بك وبما جئت به فهل تخاف علينا؟ رسولك إلا وأنك الرمين حق عادتي من وان الرمين مياد نوع بصنيسا. قال نعم فإن القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. هاي قلب يد المبني آدم لو فرض الله الرحمن كابي كسجيهين سر دونا رب سبحانه وتعالى مركا وحير الرباه. وحكى له رسولك السجن عليه الصلاة والسلام حديث كمستدرك وحاكم كسجن من حديث أنس بن مالك إنه النبي يقول عليه الصلاة والسلام الإيمان إن الإيمان لا يخلق في جوف أحدكم كما يخلق الثوب فاسألوا الله أن يجدد الإيمان في قلوبكم. وارمتكين إيمانك سوه موبا وهم بالنقضة إيا بالي سيدي مرضوه موضو اللو يديستم الرسول عليه الصلاة والسلام إيمانك الله يدين عسبونيسية. إخواني في الله إيمانك وحيابه عسبونيسية وحكمدا بوقشد حبالها إنه أقستنه ولا لذي نسين أنورين أنورا سين أهمين أهميي سين أشقيسن أشقيسني سين مركا أولا بسنة ما أنت كمدا كو حبالها الدقن وحوي السوقية صورتي إلا أفو فوق قيامه يدعو أولا كلا حسابيه ورجاء أنك قبل يديبوا صور نقدار كوا بوقشدودو waxay keentaa in marka iimaanku marka wax weeyaan cusboonaado. zuuru alqubuur bulaha rasuulku alayhi salaatu wasalaam war xabaalaha booqda imise qaraabadeena baa dhintay waxa laga yaabaa aabaha inuu dhintay hooyada inay dhimatay xaaskaaga iyo ooridaada inay dhimatay walaalka iyo ilmahaaga inuu dhintay in marka waxa weeyaan inagana dariiqaas aynu haynaa deedna xabaalaha booqashadoodu waxay keentaa inuu qalbigu dabco. kuntu nahaytukum an ziyarati alqubuur ala fasuruha war xabaalaha booqashadooda hadda ka hor waan idin diiday xabaalaha booqda buu lahaa rasuulku alayhi salaatu wasalaam. booqashadu xabaaluhu qalbigay dabciisa oo aakhira lagu xasuustaa oo waxa weeyaan hadal xunnaha ku dhawaaqina buu lahaa rasuulku alayhi salaatu wasalaam. waxyaabaha iimaanka dabciya waxa kamid ah walaalayaal inaynu ka fakarro horjoogsiga Allah subhanahu wa ta'ala khaatimadeena inaynu ka fakarro maxaa ila dadkii hore waxa dhabarka ka jabiyay fakarka ay ka fakarayaan waxay khaatimadoodu markaa noqonayso. maxaa yeelay rasuulku alayhi salaatu wasalaam حديث مسلم صحيح سكوتشرا النبي يقول عليه الصلاة والسلام إن الرجل لا يعمل عمل أهل الجنة قفك عمل بصمين يا عمل كي أهل الجنة مركاسا وقت قدام به وحويا وحلا وقت ما يا عمل كي مركاوها أهل النار ساسوا لي رسولك عليه الصلاة والسلام. فكر كآخره هرجوكس كآخره إلهي هرجوكس تبارك وتعالى سؤالها إيل كما لا يقطع قفك كوي دينيا maritaanka waxa weeyaan jidka siraad dhamaan la wada marayo su'aalaha rabbi subhanahu wa ta'ala adoomihiisa weydiinayo inta ka fakarkeed waxay keenaysaa inuu qalbigu markaa waxay dabco. wa amma man khafa maqama rabbih wa nahaa an-nafsa 'anil hawa fa inna qofka ka cabsada horjoogsiga Allah tabaaraka wa ta'ala ilaahay wala wada hortagaya su'aalahana adoonka ilaahay baa weydiinaya cid kale weydiinaysa ma jirto. su'aalaha maanta halkan ardayda imtixaanka laga qaado معلن يا بشر يا بني آدم باك قاعدة لكن سؤالها آخره ما منكم من أحد إلا وسيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان فينظر أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم وينظر أشأم منه فلا يرى إلا ما قدم وينظر بين يديه فلا يرى إلا النار تلقاء وجهه فاتقوا النار ولو بالشق التمرة متفق عليه. أدونك يا الله عيدك للجواب على سامجرته ترجمان مجره أدونك حقيقة ملكتو إيجا يا مركز أو حركة يا عمل كيسي حلا وحين عملكم مشغول صنعي ولا قرية حقيقة ملكتو إيجا يا عمل كيسي وأركيا حقيقة هرو إيجا يا نارتي بتشوكتا سادرات ولا ليال إلى نكفك الروح وحين قدم بيا آخر قدم بيا وحي كان يسها إنه مركز وحويان إيمان كان وحويان كبعه قلبي يد إنه مركز وحويان أي دبعان. ثم صلوا وسلموا على رسول الله امتثالا لقوله تبارك وتعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم طهر قلوبنا من النفاق اللهم طهر قلوبنا من النفاق وأعمالنا من الرياء وألسنتنا من الكذب
وأعيننا من الخيانة إنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم ارزقنا قبل الموت توبة وعند الموت راحة وبعد الموت جنة ونعيمة. اللهم اجعل آخر كلامنا من الدنيا شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. اللهم ارزقنا حسن الخاتمة. اللهم ارزقنا حسن الخاتمة. اللهم ارزقنا حسن الخاتمة. اللهم اغفر لنا ولآبائنا ولأمهاتنا ولمشايخنا ولمن له حق علينا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين أعداءك أعداء الدين يا رب العالمين. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا رخاء وسائر بلاد المسلمين. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.